kuwani waa muuqaalo sira oo dambe oo soo baxaya taasoo walaashii Safiya Tusmo walaashid ka hadlaysa arrimo xasaasiya sidoo kalena la socotay dhacdada ku dhacday walaashid falkii loo dhigay iyo sidoo kale sixirkii xumaa ee 3 sano ninkii qabay u dhigay sidoo kale Safiya walaashid waxay dhigtay sira aad u ballaaran halkana saaxiibayaal waxaan igu soo gudbin doonaa muuqaalo sira oo qarsooniya kuwaas oo bareefada aanu dhacnay xogo gaar oo ninkani lahaa Cabdirasaaq Xasan Cajuun oo ahaa ninkii qabay Safiya Tusmo haddaba sidoo kale waraysiye ay baahisay Safiya Tusmo oo runtii xasaasiya iyo sidoo kale sixirkan yaa sixray sidoo kale Safiya Tusmo walaashid waxay ka hadlaysaa oo ku dheeraanaysaa sir xasaasiya iyo sidoo falkan u dhacay iyo sida qaabka uu la socotay oo ahaa muddadii 3 sano sidoo kale waxa jira iyaduna in ay Safiya Tusmo sheegtay in ay eegad baryahaaba 3 sano ay ninkan isqabeen haddaba saaxiibayaal halkani waa janaalkeena xog bixinta wararka fadlan hadaad ku cusubtay janaalkeena subscribe ku dhufo like-na saar muuqaalkan si ay kuu soo gaaraan xog bixinaha iyo halkan waraysiyada xasaasigan ku gudbano mar walba haddaba saaxiibayaal intii la socotay dhacdadan qabsatay baraha bulshada ee saameynta culus ku yeelatay walaasheen Safiya Tusmo waxa sidoo kale muuqaalo sir ka baahiyay in ninkani 3 sano uu qabay uu ka hayay muuqaalo sir sidoo kalena uu ku xidhay $22,000 haddii ay soo diri weydana sidoo kale soo bandhigi doono muuqaalo ka sii daran haddaba saaxiibayaal waxaan jeclaan lahaa in isla dhageysano oo ay ku horeyno muuqaalka ay soo bandhigtay Safiya Tusmo walaasheen ee barwaaqan ila dhageysto run ahaantii waxa Safiya helay waxa dhibaatada ku dhacday waxay tahay meesha ka bilaabatay waxa hadda haysta waxaysan sheegi karin waxa weeye wax dhan waan siinaya Safiya Tusmo 3 sano ka hor ayaa la guursaday si xalaal oo sharaf leh oo laba qabiil u kala doontay ayaa loo guursaday nin ay islahayd maanta ka meedho wixii ku soo maray oo guurkaaga ku deg ayay guursatay magaca ninka guursatay Safiya waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun ayaa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun waa father of 7 children caruur leh oo reer leh Qaahiru joogay markay guursatay noloshiisu may ahayn mid isku toosan Safiya maanta iyada ku tacabtay sida qofka loogu taco ee ilmahaaga aad ugu tacabtay aad u korisa jaamacad u geyso ayay ugu tacabtay inay maanta xoolo iyo wax walba iyo inay dhoofiso iyo inay kaxayso ay samaysay wiilkaas iyadu waxay tiri 2 sano ku noolaa laakiin 3 years bay hel ku noolay 3 sanadood sanad bay ka jirtay araba xaqiiqda jirta inaan idin sheego Safiya markii la guursaday arintaasi dhacday Safiya horta way xanuunsantay sideeda maaha she is not herself markii iyadoo hadda arinta ay ugu timid ay ka timid maalinka ay ka timid xagga tagtay waxay u tagtay ilaaj Safiya waa la sixiray way xanuunsatay waxa way nolosheedu dhan baa la wareegay telefoonkeeda waxa lagu xidhay wax la yiraahdo team view buu ku xidhay Safiya waxa lagu sameeyay in wax kasto ay haysato la ogaado oo telefoonkaaga halka laga daawado not only TV iyo telefoonka caadiga haysato noloshaada caadiga shaqada hadaad tagayso wax kasta hadaad tagayso weeyaan Safiya waxa la wareegay waxeedii oo dhan nolosha iyadoo ku jirta ayay maanta waxay u timid inay ilmaheedii xanuunsanayay caruurteedii ka soo tagto oo istiraahdo muxuu ahaayay isilaaj ninkeediina de wali isqabaan laakiin noloshu aad u xunto hel tahay Soomaalian garanin Safiya markay xagga tagtay waa la dabiibay quraan baa la saaray dadkii waxoogaa way fiicnaatay culimadii way wala hadleen waxa lagu yiri fargal iyo bahan ay sidatay bixi fargalkaana bixi waxa weeyaan waxna looma qarin safarka fargalka iska bixi ninkaana ha u dhaw